madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa sheegay inaanu ilaa hadda maqal wax sheegaya in shirkadda DP World ee laga leeyahay Imaaraadka Carabta ay maalgelin ballaaran ku samaysay ama ku samaynayso dekedda Berbera ee dalka Somaliland. waxaa kaliya ee uu og yahayna uu yahay soo jeedimo mashaariiceed sida uu ku dooday madaxweyne Geele oo waraysi siiyay shabakadda The African Report oo xarunteedu tahay dalka Faransiiska waxa uu shirkadda DP World ku dhaliilay in ay caan ku tahay in marka hore ay buuq iyo hadal hayn badan abuurto laakiin intaas kadib aanay waxba qabanin. waxaanu yidhi xataa wiishka ugu yar oo kor loo taagay kuma arkaysid annaga ayaa taas soo ogaanay. madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo waraysigan oo uu bixiyay 24 bisha November 2020 lagu weydiiyay khilaafka ganacsi ee ka dhaxeeya ama u dhaxeeya dalkiisa iyo shirkadda DP World waxa uu sheegay inay wali dacwadii arrintaas la xidhiidhay ka socoto maxkamad ku taala magaalada London ee dalka Ingiriiska lagana yaabo in ay dhaqso uga bilaabanto dalka Mareykanka. waxaase uu DP World ku eedeeyay in ay ka madax adeegayso in ay la fadhiisato dawladda Jabuuti si ay uga wada hadlaan arrintan. lacag dooni maayaan waayo lacag badan ayay haystaan. waxa ay doonayaan waa in kootadii hore oo kale dib loogu soo celiyo ayuu yiri madaxweynaha Jabuuti. waxa uu sidoo kale madaxweynaha Jabuuti ku eedeeyay shirkadda DP World inuu qarsoon yahay qorshe siyaasad dhuleed oo ah in ay gacanta ku wada dhigto dhammaan dekedaha gobolka. waxaanu sheegay in Jabuuti aanay ka mid noqon doonin shaxda ay dhigteen dibna ugu noqon doonin heshiiskii hore u jiray. madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo wax laga weydiiyay kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta dalka Soomaaliya ayaa sheegay in wali aan lagu guuleysan in xididada loo siibo hogaamiyayaashii Al-Shabaab taas oo uu tilmaamay in ay waajib tahay in la sameeyo si wax looga qabto Al-Shabaab oo uu sheegay in ay isku fidisay gacan ku hayntii dhaqaalaha ilaa heer ay gaadhay in ay noqoto nooc maafiya ah sida uu ku dooday madaxweynaha Jabuuti. madaxweyne Geele oo sii wata jawaabta uu ka bixiyay su'aasha laga weydiiyay Al-Shabaab waxa uu yiri kontiinar fara ku tiris ah ayaa ka baxsada waa ay cashuuraan baad ayay ka qaadaan waxna way marsadaan waxaas oo dhan ka sii daran in ay biinayaan mas'uuliyiinta sida ayuu yiri madaxweynaha Jabuuti oo ka hadlayay sida ay kooxda Al-Shabaab wax u marsadaan cashuurahana uga qaadaan badeecadaha ka soo degay iyo kuwa ka dhoofaya dekedda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. waxaanu intaas ku daray in Al-Shabaab ay ciidamadeeda ka qorato xeryaha qaxoontiga iyada oo dhalinyarada bilaa shaqada ah siinaya cunto kadibna ku shubaya afkaartooda tababaro iyo hubna siinaya. madaxweyne Geele waxa uu sheegay in uu ka cabsi qabo in Al-Shabaab ay ku guuleysato in ay ka mid noqoto baarlamaanka soo socda ee federaalka Soomaaliya. doorashadii sharci dejinta ee Soomaaliya waxa loo mudeeyay sanadka 2021 waxaan ka cabsi qabnaa in aynu ku dambayno baarlamaan ay Al-Shabaab si dadban u maamusho waayo waxa ay iibsan doonaan taageerada xildhibaanada ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo intaas ku daray inaanay jirin maalin ay Al-Shabaab maanta kaga khatar badan tahay gobolka Geeska Afrika oo dhan. geesta kale mar wax laga weydiiyay dagaalka u dhaxeeya dawladda federaalka ee Itoobiya iyo maamulka Tigreega waxa uu sheegay in ay jecel yihiin deganaanshaha iyo midnimada dalka Itoobiya.
adigoon safar iyo socdaal gelin magaalo iyo suuqna tegin markaad sarrifdoonaysaan si fudud waxaad uga heshaan sariflaha Cabdinaasir kaga sarrifo saacad kasta sariflaha Cabdinaasir tixirka ugu fiican ee suuqa noocyada lacagta oo dhan idinkoo adeegsanaya lambarada saadka iyo dahabka ee halkan idinka muuqda haddaba ku xidhnaada sariflaha Cabdinaasir oo kala xiriir taleefanada shaashada kaaga muuqda